kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii saddexaad waa barnaamijkii habeennimo taariikhdu waxay ku beegantahay 13 May wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijkan ku faahfaahinaynaa waxaan marka hore ku bilaabaynaa Iiraan iyo Kuwait oo ay ka dhex qaraxsan tahay haddaba Iiraan iyo Kuwait maxay isku hayaan Kuwait waa dal yar oo tacbaana Iiraan oo macalinka weyn iyo Yurub iyo meel saartay maxay iska rabaan su'aasha meesha ku jirta haddaba marka waxaa jiray oon horeydi kugu sheegay xubno la sheegay inay ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan jasiirad Kuwait ku taala inay yimaadeen doonay watayna ka halawday iyo waxaasaliin Kuwait nimankii qabatay waxay tiri waxaan soo qabtay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan oo rabay jasiiradda inay qabsadaan Iiraaniyiintu waa yaabeen warsidee wuxuu jiraan jasiiradda hadaan qabsanayno ma Kuwait u daahayla maxay tahay nimanka Kuwaitiyiinta nab isla markii warkii waa la buunbuuniyay khaliijkii ururka ay leeyihiin war soo saaray dawladda Qatar waa cambaaraynayna weerarka Iiraan ay ku soo qaaday jasiiradda qabsan lahayd waa loo sugay hadda marka goordhow wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan oo nin akhyaar ah wada hadallada u qaabilsan nin diblomaasi ah nin adduunka ay la macaamilaan ayaa xanaaqay intaan la gaarin wadaadadii mayalka adkaa ee shiicada intaan la gaarin wasiirka xanaaq wuxuu yiri 4 qof oo muwaadiniin ah oo reer Iiraan ah ayaa qabsateen waliba waxa leeyihiin way nagu soo duuleen wana 4 qof maxay ku duuli karaan oo ay qabsan karaan wariyaa dhageystoyin haddaa soo dhiibi weysaan saacadaha soo socda 4 qof ee Iiraaniyiinta ah dhulka idin la jareynaa waxa la yaab leh marka dadka hanjabaya oo qatarta kuma jirin ninkan isku diblomaasi qoonyar socdo wada hadallada iyo waxa kan iyo wasiirada arrimaha dibadda oo dhan ninka ay la macaamilaan oo ay la hadlaan iyo Witkoff-kan iyo ninka xoogaa ugu degan waa ninkii ka xanaaqay talaabada Kuwait ay qaad oo wali ay ragga sii haysato oo ay leedahay waa nagu soo duuleen oo jasiirada qabsan ribeen ma 4 qof oo jasiirada qabsanayso waa loo taalaawi walaaya warbaahintii oo dhan markaa ducays warninkii biskiinka hataa waa ka xanaajiyeen Kuwait intee u socota ay leeyihiin haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay Araqchi oo wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa ku eedeeyay Kuwait inay xiratay 4 qof oo Iiraaniyiin ah wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araqchi oo goordhow hadlay wuxuu sheegay in ay dadkani ay markaa haysteen dooni yar oo markaa ay ka ciladowday kadibna waxaa qabtay Kuwaitiyiinta 4 qof oo Iiraaniyiin ay ahayd waxaan codsanaynaa uu yiri in si degdeg ah loo sii daayo haddii kale wuxuu yiri la sii deen waayo waxaanu bixin doonaa jawaab haddaba muwaadiniinteena ayaa lagu qabtay yiri iyagoo ku sugan meel ku dhow jasiirad ay Kuwait markaa leedahay waxaana la sheegay jasiiradaasu inay isticmaalayeen Mareykanka si ay Iiraan uga soo weeraraan marka meeshaas ay ku sugnaayeen nimankaana qabtay Kuwaitiyiinta hadda marka wuxuu yiri war dhan ma rabno ma soo daynaysiin mise ma soo daynaysiin ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ahaayeen iyo kan ahaayeen iyo gabgab ma rabna arag marka waxa idin ka rabnaa yiri 4 qof inaa soo daysaan marka meesha waa lisaan dadaya waxa la isku naxariisanaa bale qodobka labaad ee barnaamijkeena ku soo qaadanayno berito waa 15 May waa maalintii 1967 ay Israa'iiliyiintu qabsadeen masjidka barakaysan ee Al-Aqsa iyo gabi ahaanba magaalada barakaysan ee Al-Quds Carabtiga laga qabsaday waa la faysteena marka waataan horey kugu sheegay 3 wasiir ahaayeen iyo dhowr xildhibaan oo dawladda weydiistay inay ku dhex feesteeyaan
masjid al-aqsa hadda waxay marayaan lagu leeyahay 9 wasiir iyo 13 xildhibaan oo waxay rabaan in dadka dabaaldega sameynaya yahuudda maalintaas inay masaajidka gali karaan magaalada dhan meesha ay Falastiiniyiin iyo Caraba meel ka degan Qudus meesha carabtu ay degantayn in la tago oo la caayo carab الموت للعرب الله أساس الله نمك شيعة وحيل هذا الموت لإسرائيل والموت لأمريكا الموت أي الموت للعرب عربت هذه مطو عربت أساس النقط كان هالنقط وعيتمان مركب حالي كنت كن أوقف أيا إسودي وإنجليزي مظاهرات يدا لقو قبان دونو مقالة قدس 9 wasiir 13 xildhibaan iyo gruuba la socda waxay rabaan marka inay galaan masjid al-aqsa inkastoo dawladdu wali ogolaanshaha iyo maya aan laga hayn laakiin nimanka hadee roo iska gali karaa maadaama wasiir ay mid kamida marka wasiirada hawsha wada ayaaba maanta galay masjid al-aqsa aniga faystada haddaan sii bilaabay ninkan marka waa qolooyinka xaq jirka yahuudda waay xisbiga wuxuu ku jiraa bin ghafiir oo gudoomiyo ah waa wasiirada ay xukuumadda shirkada ay kula yihiin bin ghafiirka iyo kan iyo waa wasiiro marka isku xisbi waay xisbiga oo bin ghafiir ku jira kiya maanta ciidan watay ayuu masaajidkii ku dhex feestay wuxuu anaaba hadda bilaabay bari marka maxaa sugaysaan ku soo daad ilaahu masaajidka ka qabo dhibakan haddaba marka aad tusoo wararkii ugu dambeeyay وزير إسرائيلي أيا حوكو قالي مسجد الأقصى كهور حسكا ماركي لقب صديق قدس وأيهود اسكو دياري رجال وزيركا ومجعيس لغو مقعابو يتحاق فرسرولاف أيا 4 مانتا وحاو قالي مسجد الأقصى بركيسن يدو ديارقرو وأسعدو يهودا كاسو أي دونيان إناي كحسان markii ay qabsadeen magaalada barakaysan ee Qudus 1967 May marka nimanka marka xadgudubkaas joogtada ah waa iska wadaan masaajidka dhibkaas ay ku hayaan wararkaas way soo kordheen ilaahay iyo masaajidkaaga ka badbaadi kuwa dhibaatada ku haya adikana u soo duceey ilaahay waa u jeeda kulay waxay ka qaadi karaan askeer walla fiirinayaan halkaas markaa kaga gudbaynaa dhanka kale waxa aad u soo kululaaday dhibaatada daroniska xisbullah ay ku hayso ciidanka Israa'iil waa u soo wareeganeen nag 3 taal 4 halka ku dhimatay taangiya guban ebra laga dhigay hadda marka shir degdega Netanyahu isugu wacay madaxdii ammaanka oo dhan waxay taagan yihiin baashan oo xal loo helay wallahi waxa noogu iimaanay Talaabiib ma bal la qaba kara dheel baashan raadaarka ma sheegayo baasuuka wadataan qoryaa ku rakiban nagtaas ay nugaysa GPS na kuma shaqayso wax kale nooc kale ma Chinese iyo wax kale si lama yaqaan baashaas hadda shir loogu jiraa مسيرة لهذا باش الدرون مسكا أو حزب الله أيا نتنياهو يكوحدي سكيا بي ما لول بابو حيد شاء انتاسو أسكري انتاسو تانجينا ويبربوريسا هذا هو سوكرت مركو ولا سوكر اللي باقي لك تعالى ساري هذا ما مركان تصورك ودبي الشيء كذا على قوري رئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أيا مانتو 4 waxa uu qabanayaa shir looga tashanayo oo degdega madaxda hay'adaha ammaanka ayuu la kulmayaa waxaana looga wada hadli doonaa wadada la iskaga caabin karo dhibaatada soo kordhaysa ee ay ku hayaan diyaaradaha droniska ee xisbullah ay soo ridayaan kuwaasoo khasaaro nafeed iyo mid kalaba ku haya ciidanka Israa'iil sida ay qortay jaridda la yiraahdo Israa'iil Huyub waxaa la sheegay in hadda laga fakarayo technico ama qaab kale oo maartay farsamo ah oo looga hortagi karo wixii farsamooyin hore Israa'iil ay u taqaanay waa fashilbay intii aan naqaanay oo aan kula dagaalami karnay drone waa naga dhamaatay waa naga taala خلاص tabar aan ku celino mahayno
farsamo kale hala keeno laser bahal leeraan ku raadina waa ku weyne nimaagtii waana kor taagad baasuukay suuridee baasuuk ka orada maagaysaa qoryaa ku xiran yaryar oo daradoori u dhaca markaas baasku u kala jeexay geedaha saas uga dhaxbaxe way ku dul taagantay qaybtan waxaanu ku soo qaadanaa akhbaaraad cusub wixii soo kordhay akhbaar la yaab lahaan arkay hadda oo intaan barnaamijka ku jirnay soo dhacday wasaaradda arrimaha dibadda ee Lubnaan ayaa waxay dacwad u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kow maxay ka dacwoonaysaa yeesha ka dacwoonaysaa waa akhriye marka maxay leeyihiin Iiraan dacwo ka needeen kow Iiraan maxay dikaalaysaa Iiraan fidne ka kacisay dhulkeena haye dagaalkan dadka nooga dhimanayaan maalin kasta oo xisbillah ku jirto Iiraan ka kacisay haye marka Iiraan waa in golaha ammaanku u tallaabo ka qaada waddankeena khatar ku haysaa waddankeena dhibaato ku haysaa bishii Maarso ee la soo dhaafay safiirkooda waa ceyrinay naga tagaa dhahnay waxaas oo dhan ma yeelayso way soo taagantay niman xisbullah leey marka meeshaas taagan waxay leeyihiin Iiraan marka maxay samaysay annaga waa wax dagaalama annaga waxaan nahay Lubnaaniyiin adeeryaal annaga waxaan Lubnaaniyiin annaga dagaalamayno waxa iska dhicinaynana waa niman dhulkeena haysta koonfurta Lubnaan qaybo kamid ah ayay soo galeen Israa'iiliyiintu dhaga haystaan maxaa sheegaysaa marka Iiraan ta meesha joogta maxay xisbullah waxay taagantaa waaba la idin soo qasbay heshiisyadii maalmahan Washington lagu qabanayay ayaa filinkan Iiraan cambaaray marka Iiraan cambaaraysa ma Israa'iil cambaaraysana dheemaan walba dadkeedii ka leeydis Iiraan maxay ku samaysay ma ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan dacwo ka naahubay keeneen marka adduunka halkaas uu baraya warkaas isaguna soo dhacay intaan barnaamijka ku jirnay haddaba barnaamijkaygii saddexaad waa naga intaa waxaan naga xasuusaa barnaamijyadeedii koobaad iyo labaad oo aad u xiiso badan dadka aan daawan iyaguna inay daawan doonaan inta aan mar kale kulmayno la garay oo share garay barnaamijka xaarir